بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بمهدله إله كلية سوكن كنا أو هل كان كوبي طبعا سنة ضد عصوبة بلا بيا سنة كي تبناد سمالوي فيستيفال بينو ودما شادنا وح وهبين كني كمدي هبين ندى جارهان كل يعني جاي وحي صعبا وهبين كي سوغانتا السوغانتو كليجيدا waxaan ku wada hadlaynaa af Soomaali taasina mid kale oo aad ii xiiso gelisay weeyaan waxaynu si gaar uga hadli doonaa buugaag marka waxaynu isku xidhaynaa qiimaha ay leedahay suugaantu markay dhalatay halkay ka timi sida ay nolosheena qayb weyn uga tahay iyo halka loo socdo oo ah suugaanta qoraalka oo aynu ku weelaynayno si aanay nooga lumin buug si aanay taariikhdu inooga lumin si aan qoraalku inooga lumin si aan waxa qiimaha leh ummadeenu ay ku abtirsataa naqeexa taariikhda naqeexa suugaanta naqeexa si aanay nooga lumin sidii aynu ka idin lahayn waan ogahay waynu fadhiisanaynaa laba qaybood buu barnaamijkeenu u qaybsanaan doonaa runtii mar kale mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan inoo sharaf inteena halkan joogtaa inteena London ku sugaysay barnaamijkan inuu bilaabmaa inaynu soo dhaweyno martideena meesha fog inooga timi sideen xalay sheegayay had iyo jeer barnaamijkani wuxuu qiimaha ugu weyn u yeelaa waxa weeyaan isku xidhnaanshaha ummadda maaha oo keliya inuu isku xidho West London iyo East London inay isu yimaadaan ama in Liverpool laynooga yimaado laakiin in ilaa iyo laynooga yimaado qaaradaha oo dhan oo ama ha noqoto North America oo ay joogtaba imika noqotay ciidanka inooga yimaada Siciid Saalax hogaamiya iyo in geeska Afrika iyo meelaha kale ee ay Soomaalidu degan tahay dadka inooga yimaada marka xiriirkaas iyo ismaanshahaas waa waxa qurxiya wanaag u yeela barnaamijkeena marka had iyo jeer waxay nagu tahay xusuusin waxay nagu tahay farxad waxay tahay inagu tahay inaynu wadaagno ay nala fadhiyaan caawa qaarkood waa baynu halkaynu kala sheekaysan doonaa laakiin martideena meesha fog inooga timi boqor Axmed Warsameyn baan nala fadhiyo runtii sharaf aad iyo aad weyn bay tahay boqor soo dhawow mar kasta waxay noo ahayd waqti dheer baynu ku dadaalayna inaad noo timaado nala joogto inaad markaaynu maanta inoo noqoto inaad maalintaadii runtii wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan aad iyo aad waan ugu faraxsanahay dabcan abwaan maxamed deeg iyo macallin Siciid Saalax caawa iyagaynu marti u nahay inooma marti aha caawa iyagaynu marti u nahay marka aad baan u soo dhaweynayaa waxaan ku faraxsanahay Faarax Maxali Faarax Gamuuteynu isnayna joogo oo Canada ka yimi in yar baynu kolba martideenu markay timaado aynu mid ula kulmi doonaa mid kasta habeenkiisa mid kasta habeenkeeda laakiin waxa aad ii farxad geliyay mar dhaweyd la soo sheegay in ay Hibo Nuura iyaduna timi oo hudaalkii timi oo ay inayna la joogto dabeedna bari habeen dambe haddii alla idmo halkan inoogu iman doonto marka ayana farxad weyn bay tahay inay dhinacaas suugaanta gaar ahaan qaybta fanka in Axmed Cali Cigaal oo saddex shaqo hor inoo yimi ay Hibona ku soo biirtay ciidankaasina ay insu dhameystiran yihiin marka intaas waa iga farsamadii koofiyadii baan xidhanay caawa Soomaali Festival iyo qaybaheeda marka waxa iga soo dhaweyn maxaan ku dhahay is xasuusin martideeni meelaha fog inooga timi martida meelaha dhow ka timi iyaga ma sheegno oo qayb ay ka noqdeen barnaamijka marka ama inooga yimaadaan Europe inteeda kale ama inay joogaan UK waxa weeyaan ha ahaadaan salka
barnaamijkeena aynu ku fadhino laakiin qayb bay ka noqdeen oo weliba joogtay noqdeen sida boodheri iyo maxamed xirsi guuleed iyo aniga qudhayda iyo maxaan ku idhahdaa ciidanka faraha badan noqday inay halkan ka hadlaan had iyo jeer dad xalay waxaa la sheegayay mawjacaa qudhayda inay la joogaan marti kasoo duushay maraykan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan laakiin waxaa jira qolooyin kale oo aan u malaynaya inay rabaan inay Somali Weekba ka wareejiyaan London oo ay luul hogaaminayso dagaalka soo qaaday Norway iyo inta badan maxaan ku dhahaa Europe insha Allah iyana waynu samayn doonaa laakiin ka wareejin mayno halkan Somali Week Festival luul soo dhawo runtii sharaf weyn bay tahay in sanad kasta meeshii la tagayaba aad kasii horeysa dadka waa timaad xalay aad baan ugu farxay markaan telefoonkaaga maqlay te soo dhawo runtii wayna ka marti kale waynu iman doontaa marka barnaamijku intuu socdo waan ina joojin doonaa martida waan idiin sheegi doonaa haddii aan la idmo waxa aan halkan yaag fadhiya boodheri warsame boodheri waa nin badan weeyaan waa qoraa waa cilmi baare waa haddii badankeed leeyahay turjume waxyaabaha ugu badan ee ugu qiimaha badan ee sidaynu xalay sheegaynay jabiya xuduudaha ummadda kala jabiya waxa weeyaan in la isu afceliyo luqad inta laga turjumo luqad kale aqoon marka luqadoo kaliya lama turjumay waxa la turjumaa waa dhaqan waa taariikh waa hiddi ama ha noqoto mid aynu soo qaadayno inagu inta wanaagsan ka dooranayno ama mid aynu inagu ummadda la wadaagayno marka inuu boodheri baryahan dambe roolka weyn ee muhiimka ah ee ahayn buugaagta la turjumo u qaatay waa sanadkii hore baynu halkan kaga wada hadalnay sanadkan waynu ka hadli doonaa intaynu halkan joogno haddii aan la idmo marka waa ninka koofidaha badan leh laakiin caawa arrinka loo halkan jooga arrinka uu u joogaa waxa weeyaan inaynu ka wada sheekaysano buug aad iyo aad u qiimo badan silsiladda siinley ila soo dhaweeya macallin Siciid Saalax Axmed sidaan sheegayay boodheri caawa arrin kale caawa halkan u fadhiya adigiyo dadweynuhuba waa mahadsantii macallin Siciid Saalax dabcan kuma dhaco inaan idinka sheekeeyo oo bad iskuma gelayo caawa Siciid Saalax halkan uma joogno inaynu isaga wax soo saarkiisii iyo aqoontiisii ciduu yahay aynu kaga wada hadalno waa asaasayaasha barnaamijkan waa macallin markaan salaada Siciid Saalax sheeg ereyba igaga fullaado waxay dhadaa waa macallin Siciid Saalax midna meel loo dhaafaa ma jirto waa title-ka uu isagu ugu jecel yahay waana title-kan anigu ugu hanweynahay ee ugu qiimaha badan ee uu igu yahay macallinka iyo igu yahay qof aan higsado oo muddo fara badan oo dheer aan higsanayo caawa marka Siciid kama sheekaynayno Siciid Saalax kama waramayno hawlihiisii ballaadhna laakiin caawa waxaynu saaraynaa diiradda buuggan hor yaalla la yiraahdo silsiladda siinley intiina halkan fadhida aad ugu faraxsanay caawa waa la isku dhex dhafan yahay ma odhanayo ma kala saarayo da'da marka siinleyde su'aalo fara badan oo aan hore looga jawaabin ban caawa aad ugu rajo weynahay in macallinka iyo boodheri oo sheekaysan doona ay inooga jawaabaan laakiin inta aanan macallinka ku noqonin anigu su'aal weydiinin waxaan doonayaa inaan boodheri ku horeeyo boodheri taytalada uu aan soo sheegay fara badan mid baan aanan sheegin oo aan anigu aad u xiiseeya baa jira waxaad ii tahay anigu markaan macallin Siciid Saalax uga baahdo qofka aan soo doonto baa tahay anigoo xitaa isagu ag joogay isaga aan weydiinin boodheri wuxuu noqday yahayna hawl qiimo badan oo gacanta ku hayo ummadaha kale way leeyihiin official biography of macallin Siciid Saalax qofka xusuus xijiyaha taariikh nololeedka iyo wax soo saarka macallin Siciid Saalax hawl buu isku galay aad iyo aad u culus aanan garanaynin sida uu soo baxayo laakiin waan jecelahay geesinimada caynkaas oo kale ah marka geesinimada uu qaatay iyo ururintaas
aniga oo Siciid laga yaabo qofka isugu dhownahay la isu tiriyanahay haddana markaan wuxuu baahdo aan telefoon qaato Sweden aan la soo hadlo waxaan doonaynaa halka ka galno halkeebaad ka soo gashay balbuugan iyo hawlahan aad ku jirta gaar ahaan cawad buugasiinayda intaan macalinka ugu السلام عليكم دمانتين aad baad u mahadsantihiin martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay barnaamijkan caawa aynu fadhino intiina reer magaalka halkaana reer London iyo inta dibadaha ka yimidba waa noo sharaf inaan doon timaadeen waxaan isku dayaynaa caawa inaad idinkoo wax naga dheefay aad ka noqotaan halkan jaamac aad baan kugu mahadinayaa soo dhaweynta iyo muxuu ahaa amaanta maaragtay aan isleeyahay inta ma leeka way ka yartahay marka aad baan kaaga mahadinayaa fadhi qurux badan baynu fadhinaa caawa oo taariikhi ah sanadkii horena waa naga halkan wada fadhinay oo buug kale baynu ka sheekeynayno oo siin leh xiriir la leh oo aynu dib ka ogaan doono waa aqoon iyo afgarad baan sanadkii hore halkan u fadhinay caawana waxaynu u fadhinaa waa siinley siinley aqoon iyo afgarad waa walaalo waxbay isu yihiin wayna isdhaleen wayba isdhaleen baa layidhi walaalo isaga dhow marka haddii aan dib ugu soo noqdo su-aashaadii Siciid Saalax iyo anigu wax badan baanu sunnaa Siciid Saalax muddo 10 sano ama ku dhow buu macallin ii ahaa horta macallin jaamacadeed keliya ma ahayne wuxuu ii ahaa macallin aan ka barto afka iyo dhaqanka iyo wixii soo jireenkii jiray iyo muxuu ahaa waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ayagoon weli maaragtay aan dee dalkii nabada ka yimid soo gaaray laakiin dee heer muxuu ahaa suugaan iyo dhaqan iyo maaragtay lagu xasilaan anagoon gaarin lagu soo kala tegay meeshii qarankii ee Soomaaliya waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii dibadaha yimid baan ka mid ahaa anoo inta ka yar hadda yaraani ma jirteen nasiib waxaan u yeeshay inaan gobolka Mareykan Minnesota la yiraahdo Soomaalidu caanka ku tahay kadib markaan meelo badan soo marmaray muddo kadib inaan Mareykan soo galay dadkii ugu mudnaa ehelkayga marka laga saaro meesha uu tagay waxaa ka mid ahaa Siciid Saalax Axmed Siciid Saalax Axmed waa macallin oo adigii hore u sheegay waa bare asagoo bara ah oo dugsi ka dhiga meesha oo dugsiyada dawladda midkood waxaan kaloo nasiib u yeelanay aniga iyo group aan ku jiray koox aan ku jiray muddo 4 sano inaynu fasal gooni ah oo af Soomaaliga iyo qawaacidiisa iyo muxuu ahaa iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo suugaanta kala baxeed iyo muddo 4 sano inaynu soo fadhinay kalaaskaas oo gooni ah baa jiray wax badan baan ka baranay aniga iyo kooxdaydii waxyaalihii anigu aan ka bartay aadka ii anfacay noloshaydii iyo aqoonsigaygii dib u soo celiyay bay ka mid ahayd wad garanaysaa dhalinyaro qurbo maaragtay soo galay muxuu ahaa wixii la oran jiray identity crisis iyo culture shock iyo muxuu ahaa culture waxaas oo dhan baa isugu keentay dadkii aan ku xasilay buu ku jiray waxaan ahay iyo aqoonsigayga iyo af Soomaaliga suugaanta macaansiga halkaasaan ka bilaabay dadkiina barnaamijka ama fadhiya ama in la socdaa waa dad aad ula socda barnaamijkan waliba habeenkii gaar ula socda aad iyo aad sidii habeenkii hore aynu uga sheekeynay warka way hayaan waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaad balbuuga ku noqoto buugan iyo hawshiisa buugan iyo anigu halkan ka soo galay waxa weeye buugani wuxuu la xiriiraa fasalkii 4 sano iyo mirihii ka dhashay buu la xiriiraa fasalkii anagoo fadhina muddo 2 sano ah macalinka fasalka u fadhina dhaqanka maalin koox beeni qayb ka mid ah baa isku tagtay waxa la yiri macalinka muddaynu ag joognay aynu isnoolayno macalinka wax ka weelayno baa lagu ballamay 4 qof baan ahayn marka kadibna 6 baynu noqonay adigu ala kulli hal hawshii sidii baan ku bilownay arrimihii la istusay way badnaayeen laakiin halkii aan ka bilownay waxay ahayd macalinka in horta bal taariikhdiisa iyo wax qabadkiisa iyo noloshiisaas dheerarka badan ee karaamaysan bal inaynu horta
wax ka qorno waa nolol weli socoto aan weli la gaarin oo maaragtay allaha noo daayay maaragtay maasha allah marka waxaan ka bilownay maalintuu dhashay waxaanu ku joojinay 1990 habeen geedu taagnaa iyo meel uu maray iyo muxuu ahaa waa qornay biographigaas insha Allah Biographigaas. waa inoo Marka- socda arrin farsamo ayaan ku sheegay anuu su'aashan ku weydiinaya laakiin aniga ii jawaabayso midad jawaabaysa marka halka ay bay u leeyihiin qolooyinka farsamadu intaa kadib waan ogahayo sheekooyinka idinkaa isweydiin doona caawa intaan halkan fadhino waxaan idin dhaafayaa iswaraysiga labadiinaan idin dhaafi doona haddii alla idmo waxyaabaha ay idin doonaysaan inay idinala wadaagtaan ee ay adiga macalinku kusoo tashateenna idinkaa noo hayo idinkaa noo sheegi doona aad baad u mahadsan tahay marka buuggani wuxuu ka dhashay biographiga macalinka taariikh socotay ayadoo dherer badan siinley meel bay ka soo gelaysaa aqoon iyo afgarad meel bay ka soo gelaysaa kuwo kaloo noo haray oo sanado dambe aynu arki doono meelo kale ay ka soo gelayaan marka waxaynu aniga macalinku waxaan ku tashanay in wax laga daabaco dee aan la iska haynin oo wax laga soo dhex saaro oo wixii daabacmaya hadda lasii daabaco labadan buug baa ugu horeeya waxaa la yidhahdaa taxanaha garasho iyo gudashaa la yidhahdaa kowbo ahaa kani kana waa labo waa kii laba kuwo kaloo badanna waynoo dhiman yihiin haddii aan la yidhaahdo marka hadda waxaynu gelaynaa siinley iyo waayaheedii iyo wixii ay ahayd suugaan ahaan sidii ay ku curatay maxay ku dambaysay maxaa la kala maray maxaa laga muta marka macalin I hope not close that. ilaahay naxariistana ka waraabiyo codkii maxamed moogaliib heesad dhegaysanayseen waa heesa saxarle loo yaqaano sabab weynna u ahayd bilowgii siinley iyo curashadeedii macalinkan kusoo dhaweynaya mahadsanid arartooda dheer iyagaa lehoo anigu geli maayo waxay sheegayaanoo badanna qof ah ma ihi waxaynu maqalnay codkaa xusuusta leh waxaa maansadaa curashada saxarla uga horreeyey sida aad wada xusuusataan waayada ka mida ayaa laba nin oo saaxiiba oo suugaan wadaag leh oo aad taqaaniin ayaa markuu mid maanse yidhaahdo marar badan kan kale waa uga jawaabi jiray waaba cabdi aadan qays wuxuu ku maansoodoo tiriyey hees la yidhaahdo hohay lacage hadraawi oo maqlay waan ogaaye intuu u xadatooday oo malaa yidhi war ninkii saaxiibka ahaydeen maxaa lacag u geeyey talow maxaad ka tiraahdaa ayuu haddana ka aamusay maalintii dambe baa cabdi aadan wuxuu yidhi haddana aakhiroy xaggee baad naga jirtaa 2 sannadood ruuxaddooda markuu ka aamusnaa aanu waxba odhan buu taa dambe ka hadhi waayey hadduu tii hore ka aamusay maxamed ibraahim warsame hadraawiba baa ergo ka dabageeyey ay dadku arraxmaan u yaqaaniin waa uga jawaabay 2 siyoodba ha loo yidhaahdee giraantii ay ku duubnayd maansada ergo oo
cabdi aadan qays loogu dirayo jabuuti jooga oo aanu markaa wadno sheekada aqoon iyo afgarad oo masraxiyad la dhigayay ahayd ayaa cajaladii uu diraayey baa waxa raacday heestaasi sheekada aanu markaa wadnay oo aqoon iyo afgarad la yidhaahdo kuwa ku jira bay ka mid ahayd muuqaalka saddexaad ee sheekada aqoon iyo afgarad wuxuu ninkaa heesayaa ilaahay ha u naxariistee aqooni way iska hararkeedee afgarad baa ka horeeya sheekada la yidhaahdo aanu waagaa sawiraynay dadka qaarkii maantayba dib u xusuusteen oo waxaa buugga loo qoray oraahda aqooni way iska halkeedee afgarad baa ka horeeya maantay tii mid ka darani taagan tahay waagaa dhaqan gujiska jiray oo laysku cidhiidhiyayey oo la hayay baanu ka warramaynay oo in dada oo waddanka wada jooga u dhashay laakiinse midba meel wax ku soo bartay oo loo kala yaqaano baro italiano baro inglese baro rasia baro arabico baro americano loo kala yaqaan ayaa ku filaan waayey baanu lahayn baahidii waddanka wuxuu waddanku u baahan yahay jaamacad uu yeesho oo dhexdiisa aqoontu iyo aqoon-yahanadu uga soo urtaan marka sheekadii sidaa isaga jeeday ee tanu kan afraad idinba macnaha waad garanaysaan oo kuwaa ka mida barooyaasha aan sheegay inta kale waa joogtay mid walbana waxaa lagu garan jiray sumadiisa mid doctor hebel buu ahaa yuusuf midna addictuur kidaba ahaa axmed deeq midna ditore dalmar buu ahaa dadyooga taytalkaa kale leh mid ka mida baa weli maqnaa oo aan isagu iman kaa maqnaa ayaa qoyskii baahida badani haysay wuxuu ku lahaa waan soo socdaa kow dheh waxna waa sidaa laba dheh boorsada uu la soo socdo oo uu weli dibadda jiro oo kaasi kuwa kale waa midaanan wax ka sheegi karayn haddaad waagaad waayaha taariikheed iyo waxa aan u jeedo aada ila dareemaysaan meesha uu kaasu taagnaayoo ka imanayay haddaad ila garanaysaan kii mosco ka soo duuli lahaa buu ahaayo waktiguna waa 72-kiio cadceeddu bari bay ka soo baxdaayo aqal soomaaligu xagga bari buu u jeedayo siyaabo badan baanu u tilmaanay waxay ahayd waqti xasaasiyad gooniye leh markaana hanti wadaaga maxayga qolooyina ay maqlayaan halka fadhiyaa waaga kuma hor oran karayne hadda waa ku hor oranayaa ay halka arrintu taagan tahay markaa kaa Moscow ka soo duuli doona annagu wuxuu yahay siduu yeeli doono maanu sheegine boorsada uu soo sito calaamad su'aal baa ku tiilay oo uu mudnaayo waxay ahayd question mark on his luggage xusuusida eeg inuu u daro ninkii cabdi aadan arraxmaan iyo ergo iyo wixii laga yiri oo aada ahaa uma jeensani maansada tan baa xadataysay idinba waa maqlayseenoo qof kastoo maqlaaba malaa waa u xadatoon lahaa oraahda oranaysa inaan iyada ku baaqo akhriyo dantu waxay oranaysaa waa hooyadii siinley oo taariikhdaa dhan dhashay cabdi aadan ma wuxuu mooday qolooyin baa ku yiri waxa salka fudud oo la sheegayaa oo marba meel u safraya waa adiga ayuu adaraawi ku sheegayaa marka taas ma dhaba oo sidaan u haysano weligay taariikh ka togan oo ka fiican oo qalad faham ku dhalata meel haddii aanay intaasu dhicin ama cabdi aadan aanu cajaladdaa helin oo si kastaba ha u qaato ama ha u badheero ama in kale waxaas ma curteen silsiladda taariikhdaa reebtay oo muddadaa socotay haddii aanay waxaan dhacdadaa idinku daaliyo dib ugu noqday kulahaa waagaa annagu aqoon iyo afkarad waxaanu ku lahayn oo ku sinaan dharaartii
la sargooyey dunidee rabbigay sameeyee cidka sare u taagee xidigaha siraatiyo dayax suudimeer iyo lagu sugay cadceedee sagalkiiyo daruuraha lagu xidhay sitaacee dhulka gogol la seexdiyo saba lagu nagaadiyo laga dhigay sindadabkee buuraha la saaree dhirta samada ciidiyo salka loogu joojee saddex laab bad iyo webi lagu yidhi sabeeyee dabadeed la saanyee qofba meel la siiyee saldhiggeedu qaydnaa cidi uma sinaynoo dadka ruux sabooloo saranseer ku raagiyo guryo samanin yaallo sidka dhalay ku haystoo helay seerma weydiyo laba kala sidroonbaa subax noolba joogee salfudaydku xaawuu jannadii ka saaree ruuxaad sugayso maqan waa la saadshaa sahan waa la dhowraa ha sahwiin ha selelin sarka dhaban ha noqonin ha saluugin qaybaha qalin baa saxeexee waxaan saatir kuu qorin ha u suul dhabaalayn kala saar run iyo been kala garo sir iyo caad in salaadu weligeed kala tahay sunniya faral u ogow sax iyo maan inaad saabajeediyo sanqirtirasho kala daa naf jacayl sawaaboo sanka kuu daloosho kuu suray hoggaan baa u sidaa maqaarkee ha ku daba saqlaysee ha u gaabin seetada sogsogtiyo cadaadiyo ha ku saydhin laamaha waa soo socdaa kowdheh waxna waa sidaa laba dheh samir yeelo weligaa saxarley ha fududaan kulaha idinba waad u jeedaan wax loo xadatoodo inay ahaydo cabdi aadan waxa ilowsiiyey kuwii kale oo uu taa uga soo jawaabay halkaasaynu uga garaabaynaa aad baad u mahadsantahay macallin hadda waxaynu gelaynaa falanqaynteennii waxaan ku bilaabayaa su-aasheeda ugu horreysa waxa weeye horta sideedaba siinley maxay tahay sugaan ahaan ama muxuu ahaa si kale haddaad u eegayso waa maxay siinley maxayse ahayd siinley waxaynu ku qeexi karnaa waxay ahayd runtii waa hawl hirgashay dad iyo dad badanna iyo suugaantooda saamaysay xusuus taariikheed oo mudan in wax laga qoro inaynu maanta hadal hayno oo toddobaatanaadkii dhacday waa 1970 iyo labada aakhirkiisii ama 73 bilowgiisii muddoy soo socotay oo soo dhaaftay tan aan akhriyey oo sheekada aqoon iyo afgarad waxay ahayd 72kiisii leyna markiiba waxay ka daba curatay isla 73kii dhammaadkii bishii u dambeysay 72ka waxay ahayd silsilad la yiriyaa waa silsilad macnaheedu waxay ahayd maansooyin taxane ah oo isdaba joogay oo ay kala tiriyeen dad suugaanyahano ah oo aan kala duwan oo aan meel wada joogin oo isku feker ahayn oo intooda badan aan is-oqoon inkastoo in ay wada joogtay meesha saldhigga siinleyda u ahayd oo ahayd kulliyadii macallimiinta ee la foole ee ahayd tii ay ka bilaabatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed inay wada joogtay waxay ahayd haddaba waxaasi mid aad tirakoobteeda ila garanayso oo aan anigu waagii ku saadaalinayay in inta rasmi noqotay sannadaha hore oo la soo gaadhay ilaa 34 maanso laakiinse aanu ka helay 29 maanso ay hadda buuggan ku qoran yihiin oo kuwaa ka mid ah dadyowguna qaar 4 le iyo qaar 2 le iyo waa ka yaryihiin 29 qof waa 15 qof baa maansooyinkoodii sidaasuu xusuus iigu yaho isagaa jaamac wuxuu moodayo ugu mahadnaqayay siciid buu ag joogay anna mar dhaweytaanu baabuurka soo saaraynay i weydiiyeen su-aalo qaarkeeda
waxaan ku idhi waxa ay ag fadhiya midaan ka boqo oo su-aalaha kama jawaabo intuu joogo anigoo iminka isaga ayaan xurmada iyo xusuusta iyo sida la yeelayo isagaan siiyaa. mahadsanid macalin. 15 iyo 29 aanu sheegayno inay ka badan yihiinna waa la qabaa oo waa arrin jirta, laakiin intani waa inta la huba ee asagu uu leeyahay inta anaa huba. aragtiyo kalaa jiro inay 5 qof oo kala maqan tahay oo ku jirtay, laakiin haddaanu tijaabinay way noo sugnaan weyday. sidaa awgeed waanu ka tagnay ilaa caddayn nagu filan aan helno. marka waxay ka mid tahay meelaha aan hambaynay ee dee cilmi baaridaha dambe ay toosin doonaan bay ka mid tahay. meelo kalena way jiraan. aad baad u mahadsantaa macalin. waxaan ku xijinayaa xiriirka ka dhexeeya aqoon iyo afgarad iyo siinley waa adiga dhinac ka taabtay. taa marka ku noqon mayno. siday ku bilaabatayna waa adiga ayadana si fiican noogu babalaariyey. waxaan doonayaa siinley meeshay ku bilaabatay iyo waayihii guud ee lagu jiray meeshii la joogay muxuu ahaa la foole. marka siinley iyo waayihii ay ka dhex uratay baan doonayaa inaad ayadana bal xoogaa tusaalaha naga siiso aragti muuqaalku siduu ahaa. iyadana waa sareeye ma saafine waxay ahayd xilligaan idin xusuusiyo waxaan nidhi jawiga intiinii ogeyd maahe jaamac baa si uu xusay oo dadka halka fadhiya iyo siinleyda talow inteebaa isyaqaan ogaa isweydiinteedunu leedahay. waa tii jaamac yidhi waa laysku dhafan yahay. macnaheedu qofkii 1972 jawiga siyaasadeed kan dhaqaale kan bulsho kan sida uu waddankaa ku ahaa waddankii markaa Soomaaliya ahaa oo la joogay sida uu ku ahaa jawigaasu sida waxa dadku qaarna bogaadinayay oo uu dareemayay iyo cidi waxay tabanaysay sida ay u wada yiileen oo u kala yiileen qofkii ogaa ayaanan dib ugu daalinayno inuu xusuustaa. qofkii aan ogeynina inuu maansooyinkaa ka dhex arki doono marka ay soo gaadhaan xilligaa tabashada lahaa ee tusmada lahaa ee bogaadinta lahaa cidba waxu muuqdeen ayaa iska sheekada sidaa u bilaabantay. dadka aan idin iri meel ma wada joogin in badan oo ka midiina isma oqoon ayaa sidaa ay kusii baahdo ku bilowday. waataan iri markii cabdi aadan qays uu soo hadlay oo waan soo socdaa kow dhabe ahayd uu yidhi ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi anigu waa sal fudude oo halkaa la maray oo uu ku yidhi ina walow samir tan dambe ahayd oo uu saxarladii la sheegayo gabadhii magacyada badnayd uu xeebaha sintooda ku arkay iyadoo nin sare qabo oo gooniya oo aanay waxba ku ool ayaa hadraawi kaga jawaabay sadiqabax miya tan koobaad. markaasaa labadoodiioo wada hadlaya ayaa aniga iyo maxamed ibraahim hadraawi waxaanu wada joognay iyo muuse cabdi cilmi oo aan isagu siinleyda ka muuqan laakiinse aqoon iyo afgarad ka muuqda la foolaanu wada joognay. maxamed xaashi dhamac oo qofkii allaha u naxariistay waa gaariye qofkii afraad oo sheekada tan nala lahaayoo nala wadaago nala sameeyey oo naga qayb ahaa ayaa sanad intership la yidhaahdo shaqada qaranka lasoo qaban jiray camal oo la foole marka 2 sannadood lagu jiro uu qofku u bixi jiray ayuu gaariya ku jirayoo uu burco u tegey. hase yeeshee isagoo halkii jooga oo hadraawi uu joogo aniga qof kale la hadli maaye suugaan wadaagga iyo dooda waxay naga dhaxaysaa cabdi aadan waa cabdi qays baanu wada joogaynaa
waan leeyahay bal qofkii kale oo sheekadeennii waa soo socdaa ko waxna waa sidaa oo caynkaa iska ahayd wax ka soo sheega oo durabaan baynu sugaynaa ayuu wuxuu noqday saaxiibkaygii sheekada nala ogaa maxamed xaashi dhamac oo gaariye ahaa marka tii baan u qaadan waayo lama hadlina isagoo marka hore soo adres garaynayo hadraawi la hadla oo sugaya hadraawi ayaa waxaa uu soo diray maansadiisana waxaa ka muuqatay tiisa koowaad waxaa ka muuqatay in uu gaariye uu u gudbinayo garabsiin cabdi aadan qays marka taas baan anigaygii ninkii nala ogaa qaadan waayo horta maxamed xaashi wuxuu ka soo bilaabay inuu halkan joogo taayila suugaantaa sumadoo wax kaydisee waa kii lahaa sabadii tog dheer baan kaa soo salaamee jaallahay siciidow ina saalaxow nabad iyo halkaa ka soo bilaabay mar labaadkii weeye markii koowaad waxaan idhi hadraawi markaa tii baan qaadan waayo maanse ay ku jirto ay ka mid ahayd aada nuxurka ka garanayso xaalkan sirtiisiiyo sifafaalihiisii saaxiib ogeydeen la wareegnay saymaha oo dhignay oo dhulka oo dhan la maray nin kaleoo la socon baan ugu sacabtumayaa kaa siisan maayo gaariya sideeta ayaa na dhex martay ayaan ku iri ereyga maanta waxaan idhaahdaa ereyga sirta waagaa ma aan isticmaaleen sida uu uga faa'iidaystay cabdi aadan qays laynkayga xaalkan sirtiisiyo aniga nasacduunbaa ila gashaye ma aqaan inay sir gooniya lahayd aqoon iyo afgarado sirta aada ogeydeen ina saalax sheegee markii dambe soo tixraacay marka waxaa keenay dadkii kale labadayadii saaxiib aniga iyo gaariya inaanu gooni isu haysanno oo arrinta keentay taasay ahayd su-aasha sida kale aad ii weydiisay oo baahinteeda ahayd waxaan dadka u sawirayaa dadkii aan lahaa ma ogeyn casrigaa waagaa waxa jiray oo qura maahee dareenka suugaaneed oo dadku taa weli way noo soo socotaa waayihii siyaasadeed iyo dhaqaalay baad ka hadashaa maya tii ahayd siday u baahin jirtay curinta kadib habka baahinteedu muddo yar bay aada u baahdo xawli ku baahday waxa weeye dareenka dadku qabay oo jiray oo uu lahaa waxaad egtaa markaanu caan saldhiggii ku noqonnay meesha la yidhaahdo lafoolena kulliyad waxbarasho oo caan macalinimada ku noqotay oo qura maahayne waxay noqotay goob madrasad gaara dugsi gaar ah ee suugaaneed ee fikir suugaaneed ee kuwa soomaalida hogaamiyey muddooyin ka mid ah oo wax ka bedelay waxaan u aqaanaa dugsigii suugaanta soomaaliyeed fikradaheeda kala duwan mid ka mid ah oo waagaa curtay haddeer waxaan u jeedaayoo hor fadhiya kuwii dugsi suugaaneedkaa ka mid ahaa ee waagaa waa iska leedihiina meesha uu bal sidaa u garanayo waxaa soo socda oo faarax gamuuto faarax cali oo halkaa soo fadhiya waa xididada saldhigga waxaa kale oo halkaa ka arkaa khaliif ismaan cabdiyo isaguna kuwii waagaa yacni marka dambe soo nuugay ay saamaysay ee ka mid ah dugsi suugaaneedkaasi ma aha wax gaara mar walba meel buu ka curtaa haddaba meesha baahintaasu waxay ku imanaysay qofkii maanse curiyaaba ama iyadoo cajalad ku duuban ama warqad yar ku qoran buu halkaa keenayay soo dirayay gobollada halkaa ka soo gudbinayay ha loo geeyo annagiibaa xarun u noqonnay ilaa 6 qof oo dadka siinleyda aan idhaahdo hadraawi iyo aniga iyo axmed iyo
maxamed weydaar iyo riiraash iyo ilaa kii kale ku ahaaba meeshaanu ku wada joogno marka waxaa soo baxda maalin walba oo khamiisa ayaa dhallinyartaasi waxay ka baxayaan dugsigii boardinga ahaa dee meeshii la seexanayay ku jiraan magaaladii xamar bay tegayaan oo maalinta jimcaha soo baashaalkeeda laakiinse subaxa galabta khamiista waxaa lagu garan jiray ninka garaaca ama garaaciddu waxa weeye ma tumo teebgaraya qora makiinadda teebkii hore ku qora ayaa waa xog hayntii ama jaamacadda kulliyadda iyada student affairs officekeeda ninka kaydka arrimaha ardaydoo dhan haya diiwaan haya waa registrarkii marka xafiiskiisa waxaad arkaysaa saf dadoo taagan oo leh kuwii soo baxay ii dhiib oo nin waliba oo la riixayo oo waraaqo badan uu isku xidhay oo maanta diyaariyey oo garaacay ay dadku qaadanayaan qaar xagga afgooya iyo u socdo hortayada marayay baa soo leexanayo baabuur wata oo oranaya yay khamiisatan way dhaafin waree maanta waa khamiis wixii bal soo baxay intii diyaara maanta anigana hallaysiiyo oo markaas xitaa cidhiidhka ay sii kordhinayaan dada kan qaadanayaa ma qaataan xabad quruu isagu leeyahay magaaladii xamar iyo marka iyo inta ay gaadhaan maalinta khamiista iyo kuwa meelaha kasii fog u gudbinaya waxaa stationaa sugaya xarumay leeyihiin oo magaaladii in markay khamiistaa lasoo dhaadhacaan kuwa u jooga oo halkaale waad garanaysaan waa habeen jimca oo laysu yimi oo la bulshaynayo marka albaabada la xidho oo daaqadaha layska dhowro haddaad maqli jirtay jabuuti unbaa la waa blotiigaynaaye inoo xidha waagaana halkaa waa la blotiigi jirayo marka la dhigto ayaa waraaqihii haye inoo akhriya maxaa soo baxay markaasa dadku saasay ku ahaayeen kuwaasaa sii badin jiray iyaguna waraaq iyadu duubista kuma bilaaban inay wax ka tartay af soomaaliga oo markaa sanad iyo wax ka yar bilo jiray ayaa qoraal lagu bilaabay markaasaa qoraalkaa ka baahin badnaa duubista in siinlay waraaqihiibaa laga duubay markii ay joogsatay meesha markaa baahinteeduna sidaasay station ugu gudbin jirayo markii dambe cajaladahoo dhegaysiga ay dadku jecel yihiin qofkii ugu horreeyey oo duubay maxamed ibraahim ursame hadraawi buu ahaa sidaasay kusii fiday oo marba meel ku gaadhay marka horaantii qoraalkaasay ku baahday kadibna garaantii iyo cajaladii baa kasii qayb aad baad u mahadsan tahay markana waxaan weydiinay qoraalkii weeday inta quraanu samaynaynaa qoraalkii ay ku bilaabatay baynu ku soo celinay aad baad u mahadsan tahay su-aashadii xigtaa waxa weeye siinlay dhibaato badan baa laga maray intii ay socotay xorriyaddii hadalka iyo qowlku aada ciriiri u ahayd xilli adag bay soo baxday marka waxaan doonayaa dhowr mar bay sigatay oo maaragtay ay ku sigatay inay ama istaagto ama aynan soo bixin ilaa markii dambe loo aanayo sababahay u istaagtay inay ka mid ahayd baqdintii laga baqayay ee taliskii aan ogolayn maaragtay xorriyadda hadalka bal arrintaasna wax ka dheh waxaad ka garanaysaan horta waxa suuraddaa leh oo abuuray jawiga caynkaasa nooca iyo fikirka maansadu siday oo ahaa mid sarbeeb badan lakaada iyo sarbeebta iyo hadalka dadan iyo waxa ku jiray ay dadka dhegaystaa qaar yidhaahdeen qoladan wada hadlaysaa iyagaan is afgaranayn sina wax waa uga jireenoo dee qof aydinaan isku fekerahayn oo intuu maanse kaa maqlay geeska kaloo waddanka jooga oo aydinaan weligii sheekaysan oo aan ku aqoon feker iyo siduu oo midba heerkiisa joogo inuu jawaab ka keeno dadka kala duwan waxaa ka mid ahaa oo ay keentay waxa ku jiray oo sidaa ahaa ayaa waxa bulshaduba u doondoonaysaa oo ay u daba joogaan waxaanayaa iyagaa waxooda ka dhex arkaya suugaantuna waxay suugaan ku tahay in maaha qofka loo macnayo oo la yidhaahdo sidaasaan uga jeeday haddaan ku idhaahdo
waan ku caayay anu dadka ma cayno oo midnaano waxa aan tiriyey ujeedadaasoo quray leeyihiin oo qura dadka laga soo ururiyey iyaga dareenkoodu ahaa qofka kan hal abuurka ah markay u timaado intii buu shaandheeyo qorsheeyo isku duduway dadkii buu wuxooda ku celiyaa oo u geeyaa markuu u celiyo qof waliba meesha bugta isagaa ka hela isagaa farxadeeda ka hela isagaa xalkeeda ka hela isagaa meeshuu u ciil qabo saara oo ogaada waxaasi markii ay ula baxeen ayay dadkii hoggaanka joogay iyo siyaasadana ay ku fikirtay waxyaabaha badanaanu ka soo maray mid qura dhibaatooyin ama turunturooyin badan waa midda uu jaamac dareemo oo wuxuu joogay goobtii ugu horreysay oo aan arrinkaa ku sheego weligeedaa siinlay jirtay la dhegaysanayay cidina ma ogeyn buuggaa ka horna meelna kuma qormin aniguna ma sheegin waase sheeko dhab ah oo wallaahi dhacday oo ka mid ah maanta idinma soo gaadheen buugna ma noqoteen haddii aan dhacdadaa xanuunka badnaan lahayd laga badbaadin waa 73 bishii Sebtembar meelaheeda xidhmadii waraaqaa ahayd oo la isu keenay oo isku dheganaa ayaa meel la oran jiray waa madaxtooyada adigu marka dambe noqotay isu bedeshay golihii sare kacaanka waa waaga jiray saldhigooda iyo maamulkoodu ahaa ayaa waraaqihii tageen aan magacyo qaar sheegay cabdi warsame isaaq wuxuu ahaa u qaybsanaa arrimaha dhaqanka ee waaga golaha siyaasad golaha isaga ah ayuu u ahaa nin dhalinyaro ah oo la shaqeeya oo howlaha xoghayneed iyo kuwa dhowristaba u qabta ayuu galab khamiisa u yeedhayo xidhmo waraaqaha oo isku xidhan ayuu dhiibo wuxuu yidhi maxamuudow ma taqaan sii layo bahalaan ma kastaa horta ma garanaysaa wuxuu yidhi haa waan aqaan kuwan maxamuudka uu sheegayaa uu sidaa ku leeyahay stationada lagu qaybiyo stationkaygu ka tirsanaa aan anigu geeyo oo group xis la yiraahdo cabdulqaadirism wadaaga oo meel u fadhiyo ka mid ahaa waxa xadato iyo dareen lahayd sheekada markii tan iiga horreysaan ka sheekeeyo kii magacaa lahaa baan soo casumeeyo dadka dhegaysanayuu dhex fadhiyey muddo week ka hor ah bishan 12keedii aniga oo Minnesota jooga oo aan soo bandhigay buuggan ayuu maxamuud dhex fadhiyey oo aan ugu mahadnaqay waxa uu geystay waxay ahayd warqadii baa loo dhiibay dusha feegar baa kaga yeelay qalin hadda qalinkiiyo toosa qalinka waxa uu sheegayay waxa ku qoraa wuxuu yiri cabdi wuxuu yiri maxamuud waraaqaha kan waraaq waad ogtahay ha waa taqaan ha waxa la rabaa waxa la ina soo faray in maxkamadda sare loo gudbiyo oo dalka guddoomiyihii golaha sare oo kacaanka wuxuu ku leeyahay dusha waxaa kaga qoran cabdi warsame heesahakan iyo waxaan u gudbiya axmed shire waa guddoomiyihii maxkamadda sare markaad heesahakan oo aan u malaynayo oo kala muuqda in waxyaabo badan ay ku jiraan qows bracket xero waxaa ku xidhnayd which I think oo intaas English bay ahayd I think are anti-revolution ay ku qoran tahay therefore u gudbi marka waxa la maxamuudow soo daraaf garay warqadii lagu geyn lahaa maxkamadda sare iyo dadkeedaba haday hirgeli lahayd waxaan u leenahay maanta kama sheekaysaneen maxamuud isagoo la ordaaya sabtida la rabo ma jimcaha uu baa u dhaxaya khamiista warqadda daraafkeedii ayuu isagoo ordaayay iimo yiri xaal halkan uu maraya dabeedna waanu yar tashanayoo waxa
markaa dhalatay wasaarad cusub oo la yidhaahdo wasaaradda hiddaha iyo dhaqanka waxaa wasiir u ah nin la yidhaahdo doctor maxamed aadan sheekh oo aanu allaha u naxariistay oo aanu ku ognahay hiil badan ay ka markhaanti yihiin qolooyin halka fadhiya ee suugaanta iyo qalinka iyo qoraalka iyo aqoonta difaaci jiray waayadaa ayaa wasiir xaqna waa u leeyahayoo inkastoo aan amarka aanay ku jirin in la ogeysiiyo waa waxa u qoran wasiirkii hiddaha iyo dhaqanka waxa kanuuna de waa suugaanoo waa hiddo waa dhaqanoo aniga maxamuud sidaan ku tushanay ayuu yeelayoo jimcihii buu soo daraafgareeyey warqaddii maxkamadda sare ku socotayoo xagga hoose uunbuu ha ahaato ha ku socoto guddoomiyaha maxkamadda sare ah og buu ku daray wuxuu ogeysiiyey wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare oo in ogeysiin la siiyo laakiinse maalintii sabtida tii maxkamadda ku socotay khaanaddaa lagu yarhayay waxaa la hor diray tii ku socotay wasiirka oo hadda ogeysiinta ahayd oo hadday doonto dambayn lahayd ayuu diray oo gudbiyey tiina wuxuu u yarkaadiyey bal sabti iyo axad isniintiibuu ka daba diray ilaa waa amaruu qabaaye iyada oo uu wasiirkii helayoo yaabay oo kacay oo ninkii amarka bixiyey oo usoo diray oo soo saxeexay intuu u tegey maxamed aadan sheekh uu ka baajiyey in waxaa maxkamad ay mudan tahay iyadiyo dadkeeda in la geeyo markaa maalintaa dhaweyto maxamuud waxaan idhi siin laydaa kuu mahadnaqaysa haddii aan fikirkaas soo ogaadeen aanan ka wada tashaneen aanan wasiirkaas sidaa u gaadhsiineen ma ay ahaateen meelaha ilaa qimadda marka ay gaadhay dadkeedoo la baadi doono iyo waxeeroo laga sheego iyo waxaas way iska badnaayeen laakiinse markaa oo aan cidi hore u ogeyn oo buugga kan ka hor aan soo bixin ayaa ka mid ahay mahadsanid macalin waxaynu kusoo gabagabeynaynaa su-aasha ugu dambayso ayaduna xiisaheeda leh oo ayaduna sheeko kaloo buugga ku taalla waa soo ifbixii saxarla baynu doonaynaa inaynu kusoo xirno ayaduna sheeko kaloo dhaba ku jirta buugga ayaduna ah anagu mala awaalkayagii iyo khayaalkayagii iyo dadka isu jawaabaya oo ku sugan oo isu wada noosiin ley ma sii dhexgelin oo iima suurtoobin inaan maansooyinkii waxaana ikhuseeya aniga gaariya waxaanu isniri macaawase dadku waa akhriyi doonaan iyaga akhriyi doono oo waan u dhaafayaa mar uun anagoo saa isaga joogno oo 73kiiba gebageba yahay oo xaggiisa dambe la joogo ayaa maalin maalmaha ka mid a aniga maxamed ibraahim warsame ayaa nin xasan la yidhaahdo waa xasankaasi magaciisa kale ku dari maayaan oo waa idin wada garanayn doontaan ayaa noo yimi oo wuxuu yidhi qof baa idin doonayo fariin kiin iisoo farayo guri halkeeraad ku kulmaysaanoo ninkiioo gabadhi la socoto baa noo yimiyo gabadhii waxayna tiri markaanu cabaar fadhinay anigu iyadu marka hore ma sheegan waxay tiri waxaan ergo ka ahay oo fariin isoo fartay saxarladii aad sheegaysay iyo magacyada badan qofba uu suuba la yiri saxarla la yiri kee magacyada gabadhii saxarla ayaan ka socdaa Jabuuti baana ka imi dadkuna de markii ugu horeysay labadii maanso ugu horeeyay ayaa cabdi aadan ilaa xeebaha sintooda iyo Jabuuti ku arkay waa loo badiyey xaggaasa laakiinse maansooyinku waxay ku meerayaan gabadhaa saxarla iyo 5 sabeenood oo meel jooga aanan aqoon iyo qofba meeshiisa hawlo yiraahdee waxaa ku meerayaan oo ku jiraan oo hal xidhaalayaasheedu ay tahay waran sooyaan la yiraahdo oo samaydiisu midna jibiyo midna toosiyo iyo nin sarara weyn iyo nin caataa iyo qof wax tara iyo midaan wax tarin iyo waxa la isku hayaa mawduucyada laga maansoonaya waa ay ku wareegaysaa waxyaabaha ka bacdi gabadhii waxayna tiri maalintii ugu horeysay fariin bay nooga dhigtayoo cajalad bay noo furtay gabdho sheekaysanaya oo midba xanuun hayo oo xanuunkeeda sheegaya way iska dhigaysano waa yaabno saasaanu eegno way naga tagtay
maalintii dambe saddex gabdhood baa ku duubnaa cajalada saddex gabdhood baa ahaa sheekaysanaya oo soo wada cabanaya ku duubnaa way iska maqalay oo anagu dee markaana waxaana galay fikir iyo doondoon iyo sidii loo cabiri lahaa talow laakiinse waa inoo weli maan dhammayn fariimii bayna tiri maalintii dambe maanso bay noo furto waxay tiri waxyaabaha ii soo dhiibtay tanaa ka mid a markii aanu sheekaysanno wax ka nimi ayay maalintii dambe mise waxay sidaa maanso gabay ah oo ay ka muuqato sheekooyinkii annaga iyo iyada na dhex marayay siinley qeexidii horean ka iloobee waxay wada ahayd maansooyin miisaanka maansada iyo tilmaamaha ay leedahay ku tilmaamo wada jiifto ah aan ahayn xaaji aadan axmed xaaji aadan afqalooc maansadiisu in yar bay jiiftada ka xagaysayo masafo gabadhii gabay bay noola timi dabeedna waxaanu ka garanay in ay iyadu maansootay oo waxaan tirisay dabadeedna ay iyadu saxaradiiyo hadlaysa tahay oo iska dhigayso alaab ay xitaa siday ay leedahay alaabta waa subeeciyadii iyo seeftii iyo calankii ay ka bilowday saxan hooyadaa nimay dhasho saaka kula jooga hee oo aada sal iyo maandhe u taqaan oo sal iyo maandhe u taqaan sooran kula quuta waa waagaasi ka soo soco oo waxay tiri afartaa sa'da ah intaan ka dayay sadar kalaan baanay waxaan ka rabaa inay tiri sida ay u tiri subeeciyadda laalaaban qabo waa la socotaaye seef waxay keentay seef silver ka samaysan oo gal ku jirta iyo calan si u qornaa oo sawir gaara lahaa iyo subeeciyad marada la yidhaahdo oo isku xidhan gabaygii inaanu kusii garanay waxay tiri seeftana guddoon waxaan rabaa inaad samaantaayo subeeciyadda laalaaba qabo waa la socotaaye halkaasay la martay oo markaasaan afartii jimcihii kuu yimay maalintii hore aad kulanteen baa jimco ahayd ka soco marka kulankeeni jimcahay daba socotaaye intaana bal guddooma bay leedahay ayay leedahay kulankeenii hore oo jimcaha ayay daba socotaay markaa caasho jaamac ayay noqotayoo jabuuti ka timiyoo magac la yaqaan ahoo muddo nooleyd allaha u naxariistee hadda oo raadna xitaa ku lahayd siyaasadda jabuuti naftigeeda raadad ku lahayd ayay gabadhii noqotay noo timi oo sheekada ugu run waxyaabihii maalmihii qansax dheer loo jiidi doono maxamed ibraahim warsame walaxyada la weydiiyey oo laga qaaday waxaa ka mid ahaa afartii shay ay keentay baa la yidhi keen oo laga qaaday macno goonniyay yeelatay gabadhaasi iyo xaaji aadanba saamayn gooniya ayay interpretationkii silsiladdaa ku yeesheen annagu weligayo ma qeexin hebel baa sidaasana maanu oran laakiinse xaaji aadan wuxuu yidhi cabdowaysa seegteen saaxiibka ah hadraawiye sababtana adaaloon garan siduu u jeedo nin shimbira sabaaya waraf kama sanqadhiye duqu waa sideero halkaasuu duq iyo samawade ah ayuu nala soo doontay oo sugaantii soo gashay gabadha tanuna qalab iyo waxbay keentay dabeedna kowdka kacandiidka iyo kuwa mucaaradka jabuuti iyo kuwa kacsan iyo kuwa aan yeelayn ay ku wada hadlayaan oo alaabada isugu soo gudbinayaan
oo ay sheegayaan interpretationa ayaa abuurmay oo qanxay oo ka mida waxyaabaha carqaladda geliyey oo ka mida labadaa qof baa saamaynta weyn ayay ka mid ahayd. aad baad u mahadsantahay macallin. halka ayaanu kaga baxaynaa siinley iyo erey baynu ku daraynaa oo ah suugaanta tan waxay kaloo kusii murbaxday oo ku ogaatay da'yar waagaa curinta bilaabaysay ama ay xadataynaysay ayay ku abuurtay in hadduu gabaygu qaalib ahaan jiray oo geeraarka ku xigi jiray waxaa jiiftada la yidhaahdo inay soo murbaxdo oo dadka waagaa wax tiriyey oo dhammi ay jiifto u wareegaan oo ah suugaanta qaybtii ay abtirsiinada maansooyinka ay ka ahayd ayay ku saamaysay waxay saamaysay marka taasoo u fududay dadaan weligood hore wax tirin eeg u garo malaa isagu waaba tiriye class baanu wada dhigi jiray aniga maxamed ibraahim lafoole ku yaala oo tababar macallimiineeda ardayga iyagii yaraa oo classkaa fadhiyey ayaa maalintii dambe noo yimi oo waa axmed maxamed xasan waa qofka ugu yar oo siinley ka qayb galay oo markaa 20 aan gaadhin siduu fasalka ana biology ugu dhigayay atraawina af Soomaali ugu dhigayay ayuu yiri iga qabta waa tan saamaynta ka mid tahay aniguna tan iigu dara tiisi baanu ka yaabnay ninkii qoraayay oo type ku waday oo sameynayay ayaa maalinta dambe meelka isla taago wuxuu yiri Saciidow aniguna maansa waligeeyna Maxamed Saciid oo wax tirinaya ama wax u kumaanu maqal saasaan u eego anu gooni ila faqayo tan iga raacday iga darane waxaan ku iri war Maxamed waxba oranaysa maxaa tiri wuxuu yiri geelba sibir godan baan oranayaa waxaan iri war Maxamed taa maansa uma haysidee waa ku baryahay magaca cid ha iiga sheegiyo anigu aan qaate intuu saa ii eegay malaa oo cadhooday ayuu maalintii saddexaad geelba sibir gudan oo saa u dindimaysa oo qoran ilaa anaaba ku sii kiciyey ayuu keenay saasay dad badan saamayn ugu lahayd. waad mahadsantahay macallin. siinleyna laga dhammeeyo siinley haddii caawa dhan loo fadhiyo laga dhammaan mayo marka barnaamijkeena caawa intaa ayuu ku egyahay. siinley halkaasay ku joogsata caasha markay soo ifbaxday nin walba waa ka baqay bannaanka laga maray waa iyadii istaagtay oo ba'ley waa iyagii damcay inay u bedelaan hadraawi iyo cabdiqays ba'diina may hana qaadin oo laba may dhaafin halkaasay siinley ku xirantay waa inoo madal kale iyo muxuu ahaa taariikhaynta siinley. waad mahadsantihiin aad baad mahadsan. waan isu kiindaayeyo waad ii fadhiyaysaa waan isu kiindaayeyo waa iswaraysi taqaanaan waa koodh baa ku wada hadashaan saas daraadeed baan idinku ogolaaday in idin mikrofoonka la wareegtaan laakiin waxaan idiin sheegayaa buugga horta halkan inoo yaallaa habeenkeenu wuu dheer yahay oo buugga kaleynu ku xigsiisanaynaa dabadeedna buugga kalena dhinaca midig buu iga yaalaa dabadeedna waqti baynu isu helaynaa aynu xagga dambe aynu siino in aynu qoraayada u tagno oo iminka abwaanadeennii ciidan cusub oo ka tirsana bay kusoo biireeno waxaan ugu yeedhayaa ciwaanka qoraayadu inay noo saxeexaan bugaagto nagala hadlaane yaan iminka waxba lagu qabaamin waqti baynu haysanaan bugaagta ku qaadana wayna sugayaan iyo waqtaynu iyaga kula hadalaba hase yeeshee waxaa igu adkaatay inaan macallin Saciid Saalax sii daayo iyadoon su'aal la weydiinin marka waxaan doonayaa hal qof oo afka shicibka ku hadla inaan siiyo in su'aal in la weydiiyo waxaan sugayaa gacan taagan waan ogahay inaan idin filay Rashiid Sheekh Cabdullaahi ودي سؤال ما وطو وأنا الله هذا بعيد الكاس سين لي runtii sida raggaas uga sheekeeyeen taariikh bay lahayd xaaladna way ku soo baxday xaaladana iyagaa ka warramay mir qurun baan isleeyahay talow maaha su'aal maaha fala dheerna maaha
سعيد ساله wuxuu yiri wuxuu inoo sheegay Siinley in ay horseeday in maansada Soomaalidu ay gabaygii iyo geeraarkii labada boqor ahaa ee haystay suugaanta Soomaalida inay ka rartay oo ay jiiftada boqortay caleema saartay si weyn waxba uga jira laakiin anigu waxaan isleeyahay soo bixitaanka jiiftadu haba ahaato inay la tartamaysay ama ay higsanaysay inay maruun gaadho gabay iyo geeraari mala halkaa kamay bilaabmin ilaa lixdanaadkii suugaan fara badan oo jiiftaabaa soo baxaysay laakiin waa runtaa oo intii Siinley ka dambeysay boqortooyadii jiiftada ayaa qaadatay laakiin tartan baa ka horeeyay ama loolan baa ka horeeyay ay diriraysay jiiftadu oo ay dadaal badan ugu jirtay inay halka gabayga iyo geeraarka gaadho waxaan u malaynayaa waa layga leeyahay taase raggeedii waa joogaan jiiftada tirinayay lixdanaadkii labadaa ninba lixdanaadkii jiiftay ku maansoonayeen intaas waan u soo kacay tusaale laakiin wax kale odhan maayo waxaan isleeyahay waa sidaan is idhi dooda wixii isbedelay iskuulkii la foole markay noqoto curinta maansada sideeda iyo fikirka waxaan maleeyahay habeen baynu u baahannahay dheeraada waayo wax fara badan baa isbedelay mar dhaweyd baanu dheeg ka wada hadlaynay abwaandheeg sida wax isu bedeleen hadday noqoto golka fuulkii intuu halkaa soo taago uu maansada 200 bayda tirin jiray oo arrinka markaa ku saabsan ka hadli jiray sida xusuustu yaraatay marka wax loo qoro haddana maansada la qorin oo laga akhriyin waraaqa ay waji kala yeelanayso faa'iido gabayga sidii loogu luuqayn jiray oo inuu gabaygii koofiyadii gabayga inta la xidho waxyaabo fara badan oo lumay oo gabaygaa hore lahaa mansayaankaa hore lahaa oo ay ugu horeysata xusuusta ah 600 bayd inuu mar wada tiriyo isagoo waraaq ka akhriyaynin iyo faa'iidada iskuulku soo kordhiyay ahayd in maanso aan golka fuulahayn loo soo fikiray oo more philosophical bay odhan lahayn qolooyinka marka afkan ku hadlay loo fikiray oo laga soo fikiray la dhisay lala hor yimaado dadka waa laba iskuulo maalmo horena aynu Hargeysa bandhiga caalami boytarisa kaga hadalay halkan ku dheeda kaga doodnay una baahan habeen kale inaynu ka doodno war xilligii waxa soo kordhay halkee bay geeyeen maansada maxaa lumay maxaase soo kordhay mahadsanid sax baa tahay rashiidna comment kama daba geynayo laakiin sixid sidaan u iri jiiftu ma jirin idin oran mayso ma suugaanta Soomaalida maansooyinka weligood soo jiray oo dad badan ay tirin jireen bay ka mid ahayd boqortooyo maasay la wareegtayna ma oran weli sidiisii buu gabaygu u qiimo joogaa oo uu u yahay xitaa haddii la tiriyey keliya waxaan iri tirada maansooyinka suugaan maanso lagu sheego baa korodhay weliba waxaan meel yare tilmaamay inay dadka u fududaatay oo dad badan tudciyada miisaanka sagaaleyda maansadu inta ay tahay marka loo eego ay dhalinyaro badan oo bilow ah markeeda hore inay siday ugu fududaatay ay maanso badan waa ogahay waagaa sida aynu hadda dad aad moodo shicir xur inay tirinayaan oo aan qaafiyad iyo miisaan midna lahayn sida loola yaaban yahay ayaa maalmaha hore maansada jiiftada oo dad u haystaan inay raqiis laga dhigay haddana waa la qabatimay oo tirada weeye waxaan sheegayaa mahadsanid